السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقيارتا قاليقة الشرفت له ستوسك أبو حرن برتاد يوتيوب كعافماتسن فيسبوك بيج كيغا دكتور جوهري وندين سلامي رمضان كريم مانتي 10 عصب أيام إيسو قد بينيا 10 كان مانتو حوكو سابسين هاي مستر بونس أو لفها جيركينا قودهان oo 10 taxana aan bilaabi doono haduu alla idmoon idin ku tala galay 10ka dambe ee ramadaanka inaad kaga faa'iideysataan anagoo waliba si qurux badan u sharxi doona si muuqaal ahaan idin tusi doona haduu alla idmo qaab dhismeed ahaan qaabkii la feel u sameeyay jirkeen positionment meesha ay kaga yeelaan astaamaha lagu garto iyo ugu dambeyn markaan dhameeyno oo si xanuunada ku dhaca iyo qaabkay u shaqeeyaan oo aan dib insha Allah iyagana 10 dambe oo aan ku baran doono haduu alla idmo guud ahaan haddaan cashirkeena maanta aan guda galno cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay adimanka kore lafaha ee loo yaqaan upper limbs ayaan maanta qaadanaynaa oo qayb kamid ah habdhiska lafaha jirkeena kamid ah intaan laakiin guda galin waxaan wax idinka tusayaa guud ahaan habdhiska lafaha jirkeena meeqa loo qaybiyaa ayaan wax yar idinka tusayaa hadduu alla idmo guud ahaan lafaha jirkeena horta tirada ay ka kooban yihiin waxa waaye waa 206 lafood ay ka kooban yihiin haddii lagu weydiiyo qofka qaangaarka ah lafaha jirkiisa ku jira meeqa ay la egin tira ahaan waxa waaye waa 206 lafood waaye guud ahaan 206 laf meeqa loo qaybiyaa guud ahaan laba loo qaybiyaa lafaha jirkan oo dhan lafo guud ahaan la isku yiraahdo axial skeleton iyo lafo la isku yiraahdo appendicular skeleton kuwa kale waxaa la isku yiraahdaa appendicular skeleton guud ahaan lafaha jirkeena labadaas loo qaybiyaa axial skeleton iyo appendicular skeleton haddaba axial maxay tahay appendicularna waa kuwe axialna waa kuwe maadaan idinku tuso sawirkan aad aragtaan Mr. Bowness oo agteena jooga waa kan asaan waxaan idinku tusayaa waxaan idin calaamadeyn doonaa guud ahaan lafaha la isku yiraahdo axialka iyo kuwa la isku yiraahdo appendicularka waxaan sameynaa hadduu alla idmo waxaan deselection ku sameeyay kuwa axialka isaad u fahantaan appendicularka dhammaan kuwa cagaarka oo dhan oo colorka greenka u saaran yahay waxaa la isku yiraahdaa axial skeleton ayaa la isku yiraahdaa wixii ka soo haray lafaha colorka cagaarka u saaran yahay wixii ka soo haray oo dhan waxaa la isku yiraahdaa appendicular skeleton isku yiraahdo oo ah kalxantii laftii scapula qaybta daba ku tiilay kuwa gacmaha sameynay kuwa lugaha daba sameynay iyo miskaha intaas oo waxaa la isku yiraahdaa appendicular skeleton wixii ka soo haray oo kalka cagaarka leh oo ay kamid tahay madaxa laf dhabarta feeraha ilaa ay qaybaha ugu dambeeyay oxygelka intaasna waxaa la isku yiraahdaa axial skeleton ayaa la isku yiraahdaa soo marka maanta waxaan bilaabaynaa qaybta appendicularka ayaan bilaabaynaa waliba qayb kamid oo ah upper limbska ayaan bilaabaynaa soo upper limbska guud ahaan waxaa loo qaybiyaa bidix iyo midig ayay ka kooban yihiin oo right side iyo left side ayay ka kooban yihiin so right side iyo left side marka isku daro totalka lafaha ay ka kooban yihiin guud ahaan waxa waaye waa 64 waaye so waxaan qaadanaynaa qayb kamid ah ayaan qaadanaynaa haddii hal qayb kamid aan qaadan macnaheedu waxa waaye qaybta kale waa naqaanaa macnaheedu oo haddaad mar qayb aad barato it means waxa waa qaybta kale waad taqaanaa waaye sababtu waxay tahay haddii qayb aad barato macnaheedu waxa waaye qaybta kalena waxa waaye waad fahmi kartaa oo waayo lafaha waa isku mid qaybta samaysa gacanta midig iyo qaybta samaysa gacanta bidix iyo midig labadaba waxa waaye waa qaab dhismeed ahaan waa the same way so guud ahaan lafaha adimanka kore ama upper limbs ka sameeya waa 64 32 kamid ah ayaan qaadanaynaa oo qaybta midig right side-ka ayaan qaadanaynaa intaanan guda galin waxaan rabaa horta magacyada inaan hal mar idin tuso laakiin hal mar magacyadan qoraynaa oo isla fiirino okay dhinacana waxaan u sikinaynaa si aan u helno space aan wax ku qorano okay midan waxaa loo yaqaanaa number 1 aan ku calaamadeeyay waxaa loo yaqaanaa clavicle ayaa loo yaqaanaa clavicle so qaybta hadda aan ka hadlayno right side-ka waxay ka kooban tahay waa hal xabo qaybtan waxaa loo yaqaanaa number 2 waxaa loo yaqaanaa scapula waxaa loo yaqaanaa
scapula idin sidoo kale marka qaybta midig kaliya laga hadlayo waxay ka kooban tahay hal xabo ayay ka kooban tahay. qaybtan waxaa loo yaqaanaa humerus ayaa loo yaqaanaa, waa qaybta gacanta samaysa, waxaa loo yaqaanaa humerus idin sidoo kale waxay ka kooban tahay hal xabo, laakiin markii qaybta bidix lagu daro waxay noqon doontaa laba ayay noqon doontaa. Number 4 waa ulna radius waxay ka kooban yihiin laba, waxaa la isku yiraahdaa ulna iyo waxaa la isku yiraahdaa and radius iyagana waxay ka kooban yihiin labo. Number 5 waxa waaye waa lafaha qaybahan sameeya carpaliska. intaas number 5 waxay noqonayaan lafaha, waxaa loo yaqaanaa carpalis ayaa loo yaqaanaa, iyagana waxay ka kooban yihiin 8. waxaa ku xiga metacarpalis lafa loo yaqaano, metacarpalis lafa loo yaqaano ayaa ku xiga oo iyagana ka kooban 5 laf ka kooban, iyo phalanges oo ah kuwa farihii sameynaya, lafaha faraha sameeya waxaa loo yaqaana iyagana phalanges oo iyagana ka kooban 14. guud ahaan waxay ka kooban yihiin 14. so hal scapula oo hal ah oo lagu daray clavicalka oo hal ah, iyadana oo lagu daray humerus oo hal ah, oo lagu daray ulna radius oo 2 ah, oo lagu daray carpalis oo 8 ah, oo lagu daray metacarpalis oo 5 ah, oo lagu daray phalanges oo 14 ah. totalkooda meeqay noqonayaan marka? so hal ku dar 2, hal ku dar 3, 2 ku dar 5, 8 ku dar 13, 5 ku dar 18, 14 ku dar 32. so 32daas laf ayay ka kooban yihiin. so midnaan u dul istaageen aan isla fiirino. okay, intaan dul istaagin waxaan rabaa gacanta guud ahaan 3 qayb loo qaybiyaa. sida gacantan aad arkaysaan, gacantan guud ahaan waxaa loo qaybiyaa 3 shay loo qaybiyaa. qaybtan oo loo yaqaano arm, qaybtaas waxaa loo yaqaanaa oo badanaa murqaha gymka laga dhiso oo triceps iyo biceps laga sameeyo waxaa loo yaqaanaa arm. qaybtan oo ay ku jirto ulna radius waxaa loo yaqaanaa forearm, waxaa loo yaqaanaa forearm ayaa loo yaqaanaa. qaybtan kale oo iyadana sameysa gacanta ay ku jira carpaliska iyo metacarpaliska iyagana sidoo kale waxaa loo yaqaanaa hand. qaybtaasna waxaa loo yaqaanaa hand ayaa loo yaqaanaa hand. so guud ahaan gacantiisa loo qaybiyaa arm, forearm. arm waxa waaye waa intaan waa arm, forearmna waxa waaye waa intaan, hand waxa waaye jointigan wixii ka dambeeya iyagana sidoo kale waxaa loo yaqaanaa waa hand ayaa la dhahaa. okay, midda u dul istaagna muuqaal ahaan soo dhaweyna laftan waxaa loo yaqaanaa aan dhahnay waa clavicle. sidaad ka aragtaan qaybta midig magac ayaa kugu soo qormaya oo right-ka ah, waayo qaybta hadda aan ka hadlayno waa right side, waxaa loo yaqaanaa clavicle. laftan waxaa loo yaqaanaa scapula, intaas waxaa loo yaqaanaa humerus, labadan waxaa loo yaqaanaa ulna iyo radius, middan waxaa loo yaqaanaa scaphoid, intaas waxaa loo yaqaanaa lunate, biciform, triquetral, hamate, capitate, trapezoid iyo trapezium. waa 8daas laf waay oo haddaad tirisaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 waa 8 laf waay. 8daas laf marka gudaha waxaa la isku yiraahdaa carpal bones ayaa la isku yiraahdaa. waxaa la isku yiraahdaa intaas 8dan waxaa la isku yiraahdaa carpalis ayaa la isku yiraahdaa. waxay ka kooban yihiin 8 laf ayay ka kooban yihiin. maxay nooga xiga metacarpalis oo iyagana 5 ah. 1, 2, 3, 4, 5. so metacarpaliska iyagana maxay ka kooban yihiin 5 ayay ka kooban yihiin. waxaa loo yaqaana iyagana sidoo kale metacarpalis ayaa loo yaqaanaa. iyagana sidoo kale maxay ka kooban yihiin 5 lafood ayay ka kooban yihiin. oo sidaad aragtaan magacooda in sidoo kale meesha ayuu inagu qoran yahay oo ah metacarpal 1, metacarpal 2, metacarpal 3, metacarpal 4, metacarpal 5. wixii ka soo haray guud ahaan intaasi waxaa la isku yiraahdaa waa phalangeska. so phalangeska guud ahaan suulka marka laga reebo waxay ka kooban yihiin 3. suulka oo 2 ka kooban sidaad aragtaan, inta kale waxay ka kooban yihiin min 3 ayay ka kooban yihiin. so suulka marka laga reebo oo ka kooban 2, intan kale faraha waxaa loo yaqaanaa phalanges, bala suulka labadaasi waxaa loo yaqaanaa phalanges ayaa la isku yiraahdaa.
so intaan afar oo min saddex ah afar saddex ku dhufo 12 oo lagu daray labada suulka ah so 14 ay ka kooban yihiin phalangeska totalkooda waxa waaye 14 waa ay ka kooban yihiin so guud ahaan lafaha upper limbs waa inta so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 so guud ahaan lafaha jirkeena waa intaas ay ka kooban yihiin so haddii lagu weydiiyo upper limbska qaybtiiba jihadiiba waa 12 wala jihada kale leftiga right marka isku daro sorry waa jihadi waa 32 dhe jihada kale leftiga iyana sidoo kale waa 32 isku dar totalkeeda waxay noqonayaan adool eedmo 64 oo ah 32 plus 32 is equal to 64 so cashirkeena maanta inta ku soo gabagabeynayna waxaan barnay lafaha ku jira qaybaha dimanka kore upper limbska tir ahaan intay ka kooban yihiin laf walba magaceeda ayaan maanta barnay haddoo alla idmo insha Allah cashirkeena kala aan qaadan doono wuxuu noqon doonaa isna sidoo kale lower limbska aan ka hadli doonaa kadib madaxii ayaan soo gali doonaa xabadkii ribiskii belfigii ilaa waxaan ka hadli doonaa vertebrae so sidaas ayaan u wada doonaa haddoo alla idmo haddaad cashirka runtii wax badan aad ka faa'iidaysatay fadlan YouTube channelkeena subscribe saar oo la wadaag asxaabtaada haddii Facebook page-kana aad ku cusub tahay follow dheh like saar oo la wadaag asxaabtaada si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kale Ramadaan Kariim wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh